وزير الدولة وزارة arrimaha dibadda ee xukuumadda kumeel gaarka ee Soomaaliya Xamuud Cali Maashay ayaa waxa uu ka warbixiyay shir uu dhawaan kaga qayb galay dalka Ingiriiska kaasoo looga hadlayay dhibaatooyinka ballaaran ee kooxaha burcadbadeeda ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya isla markaana qowleystaan maraakiibta isticmaasha biyaha gacanka cadmeed ay ku hayaan dhibaatooyinka ballaaran waxaana shirkaasi ku wehelinayay wasiirka kalluumaysiga ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Ibraahim وزير الدولة ayaa waxa uu sheegay inay jiraan ilaa 5 dal kuwaas oo madax u yahay dalka Ingiriiska isla markaana baacsanaya kooxaha burcadbadeeda Soomaalida wasiirka ayaa xilliga shirka jaraa'id uu qabanay waxa uu ku sugnaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya isagoo halkaas uu la fadhiyay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Engineer Ali Americo in shirka Ingiriiska ka qayb galay waxa laga hadlayaa arrimaha burcadbadeeda sidaad ogtahay waxa jira gruubo badan oo 5 gruub kala ah marka gruub waxa jira koox waxa jirta Ingiriisku madax yahay oo aan moogtahay naval operationska ama hawlgallada in ciidamada badaha ay ka fuliyaan moogtahay badweynta India kuwaasoo wadana fara badan ah oo ka kala socda adduunka oo dhan oo wada xiriirayaan sidii ay moogtahay ula dagaalami lahayn burcadbadeeda iyo sidii ay u dhisi lahaayeen tayada iyo moogtahay awoodda in wadanada ku xeersan badweynta India iyo badda cas oo dhan awoodooda si ama tayadooda ama tamartooda kor loogu soo qaadi lahaa sida ugu hawlgal lahaayeen ay ula dagaalami lahayn burcadbadeeda wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan xabsiyo laga sameeyo Soomaaliya kuwaas oo lagu xirxirayo kooxaha burcadbadeeda ee gacanta lagu soo dhigo waxna intaasi uu ku daray in iminka la qorsheenayo Soomaali loo tababaray ilaalinta xeebaha biyaha Soomaaliya kuwaas oo ka baacsada biyaha Soomaaliya kooxaha burcadbadeeda horta imika waa lagu heshiiyay in meelo badan oo Soomaalida ka mid ah in moogta xarumo laga sameeyo oo burcadbadeeda lagu xidhaba in laaysta kale waxa jirta in Soomaalida laftigeeda loo tababaro in dad ilaaliya xeebta ilaaliya in waxa kale oo jiri doona in wada hadalkii wali lagu jira sidii loo abuuri lahaa in ururo badda ah oo ka howlgala dhulkeena oo dadka xitaa baraya waxyaalo fara badan sharciga baraya dhawaan ay ahayd markii magaalo xeebeedka Mombasa markab dagaal oo ku sugan oo shir jiraa'id ku dul qabtay taliyaha ugu sareeya ciidamada badda ee midowga Yurub Admiral Jargo Manso kaasoo sheegay inay sii yeelanayaan kooxaha burcadbadeeda sanadan waxaana intaasi uu ku daray in sanadii la soo dhaafay kooxaha burcadbadeeda kaliya afduubteen ilaa 4 markab taasoo uu sheegay in la sii baacsanayo kooxahaasi burcadbadeeda waxaana dhanka kale kooxaha burcadbadeeda iyana ay sii wadaan dadaaladooda ay ku afduubanayaan maraakiibta isticmaasha biyaha gacanka cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya Cabdirasaaq Miro Dhoore Hon Cable TV Nairobi